waxaan rabaa nafteeda inaan xusuusiyo hal duco ama dikr adkaarta la aqriyo ka mid ah oo dadka badankeena intii meesha jooga qof aan aqoonin ma laha laakiin qaabka aan ugu dhaqannaa laga yaabaa inay yar tahay laakiin waxay kugu bishaareynayaan mararka qaarkood waxaa jira hub aa haysato oo shaydaanka ay iskaga celin karto laakiin aadan aqoonin sidaad u isticmaali lahayd hubkaasi waa ducada ama dikriga hadda aan idin xusuusin doono waa wada taqaaniin waa dikri haddii aad rabto inuu ilaahay muraadkaaga aqbalo haddaad ku celiso salaad kasta haddaad 100 jeer akhriso waa 500 waa 5 waqti culamada qaarkood kun ay dhahaan haddaad akhriso oo shuruudihii oo dikrigaasi uu watay aada buuxiso oo 3 shardi ah ilaahay subxaana watacaala ducadooda markii uu aqbalaya qisaan idinkaga sheekeenaya dad dul qaadataan wallahi kuwa ay dadku xarab inay ducadan ka faa'iidaystaan ducadaasi waxaa culummada ma aha culamaa lislaam oo diinta ku takhasusay ma aha atibaa nafs culummada ku takhasustay culuum nafs cilmiga nafs oo nafta la xiriirta oo welwelka iyo distress iyo worrism iyo waxaas barta waxay dhaheen ducadan waxaa ka markhaati kacay non muslims dadka muslimiinta ahayn haddii loo aqriyo sidii loogu talagalay inay qofka maskaxiyan ay dacwo u tahay caqlan qofka dawi u tahay badanan qofka dawi u tahay qalbi ahaana qofka dawi u tahay ducadan haddaad awood haysato intay doonto hala ekaato ilahay wuxuu ku ziyaadinayaa awooddaa haysato ilahay ku ziyaadinaya aayad qur-aan waa akrin doonaa ducadan fawaa'ideeda waxaa ka mid ah intaa akrinaysid ilaahay dhib kuma gaarsiinayo dhib oo xagga jirka ilahay kuma gaarsiinayo dhib oo xagga maskaxda ilahay kuma gaarsiinayo dhib oo nooc walban ilahay kuma gaarsiinayo ducadan imaam xasan albasri ayaa waxaa u yimid nin wuxuu dhahay abaarana heshay roob la-aanana haysa maxaan samaynaa imaamku wuxuu dhahay waxaad tidhaahdaan astaqfir allah alcaiim astaqfir allah alcaiim ku celceliya ha ka daalina shuruudaheedana ilaaliya way baxeen shuruudaha maxaa waaye marka shuruudaha waxa waaye 3 inaad rumaysato ducadaas waxay xambaarsan tahay inuu ilaahay ku siinayo ma hadda kaniini madax haddii laga hayo qofka wuxuu markii ku dhahaya taama lacag sooma taama markaa qaadanaysid maxaa rumaysan tahay markaad cabtid daqiiqada kadib madaxdu kuu fiicnaanaya adaa rumeeyey adaa aaminay sooma adiga waxaad rumaysataad helaysaa ducadan haddaa rumaysato ilaahay inuu ku siinayo waxaad rabto waa helaysaa waa kowa shadaykood inaad rumaysato rasuulku wuxuu sheegay inay run yihiin inaad rumaysato calayhi salaatu wasalaam laba ducada shuruudaha ay xambaarsan tahay inaad oofiso ducada waa istiqfaarna waa shuruudu tawba ay xambaarsan tahay oo ah dembi haddaad ku jirto dembiga faraha kala bax kow laba ka shalay dembigaasi maxaad u samaysay 3 ballanqaad samee inaad mar damba ku noqon doonin 4 hadduu yahay xaqu insaan bini aadan xaqiisa lacag oo kale aad qaadatay ama xan qof aad xamatay inaad qofkaas aad ka xalaalowdo oo xaqiisa aad u celiso markaa samayso ducadii oo seeda ku imaanayso xitaa markaa soo dhahayso ninkaa rasuulku waxaa u yimid xasan albasri wuxuu weydiiyey wuxuu dhahay ani faqriga ay haya muddo dheer waxaan u baahannahay maal wuxuu dhahay ducadaan akhriso astaqfir allah alcaiim ku celceli hadda nin kaloo saddexdaa u yimid wuxuu yidhi ilmo la-aan ay hayso muddo dheer axaas ahaa ilmo dhan mali wuxuu dhahay ducadaan ku celceli marka imaamka waa la weydiiyey ardadii waxay weydiisay 3 qof oo 3 dhibaato kala duwan kuu sheegataa kuu timi mid walbana waxaad siisay isla jawaabta maxay ku dhacday markaasaa wuxuu ilaahi subxaana watacaala fi suurati nuux ilahi wuxuu yidhi faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil السماء calaykum midraara ayad maxaa leedahay faqultu istaqfiruu bilisaani nuux waxaan ku dhahay dadkeyga istaqfiruu ilaahi subxaana watacaala dembi dhaaf weydiista maxaa imaanaya kow yursil السماء calaykum midraara
ما أها روب عندك سود دينا أوكلية روب أن كلا دو لهن أو نفع لها سود أي مكان وكو محافظ يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال هذا فقير تاي إلهي سبحانه وتعالى وحيدين سينا يا مال يمددكم بأموال محافظ وبنين هذا عرور هيسر إلهي عرور إذن سينا عرور إلهي إذن سينا تاسو آية الله سبحانه وتعالى هدي أود أردت إلهي من كل زيادة أود أسوأه أود جسمي أود عقلي أود فكر أود أخلاق محافظ الإنسان لقيس آية ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه محافظ حلو يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم نبي قال وحيري ذكريون استغفروا ربكم استغفرت بدي استغفر الله استغفر الله استغفر الله نعم محاهي لسفير قاتل كمان ويزدكم إلى وحيري زيادنا يا أود أما قوة حتى أحستان إلى قوة كلا إلى هي زيادنا أود الواحد ستان حكام غنى هي كون قبضة من إطاعة مرة آية كلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ربنا قال الله سبحانه وتعالى إلهي مع عذابهم أنت يدك استغفار صنايا ما أذيل الشخصين أنت لا استغفر الله 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 ابن باز وحال سوي وقت كستون استغفر الله نيجي مكو حناي مكو جيفاناي وقت كستوال ودي محمد عاد وحده كلمة كريم القرآن كأي أحاديث بصائر وقت إن الله بديو نفع يدنا إني كونين نفع يدنا مقام هذا واحد بدنا بتاع صوما استغفر الله كالإحرام استغفر الله كالإحرام فيري وما كان الله معذبهم علوم حاليا تفسيرك عذاب بدني أجرك حنون إبقى وما دعايا يمد مسكح بقى ينعكس طبعا أنت بدك استغفار يا أخي الآية استغفر الله استغفر الله الآية كما في عن كوختي وفي عن قرض أطباء النفس وحدها وحالة صوت تجريبية وإياه سيدنا حيوان لكن أنا بقول القرآن كان ما شيء حديث وحالة صواب علم البارس بقول قال خوفك أخريا ربع ساعة أما لا تبدأ كهر صلاة الصبح مركي لبارك عقوتك كذا كذب أو فريسة أو استغفارك كوع العليا وحراك بيرنسا حبنيه سقاق النرفز كعب واحد علم أنا يسوق قال هدو كسي ضرب مركو صلاة الفجر أوتك كذا إلا الشروق أنت قرأت الكسر بحيث قف كاسح نغنا completely will be released لها حنون كسته أو مسكحة نوع كسته أو ولول أو كرائية حبسيدة بضانية وحنا كتير الله سبحانه وتعالى وحيده وبالأسحار هم يستغفرون وقت يصحك وحال لها صلاة صبح فجر الكهر استغفار بضانية وقدميت من واحد جاء استغفار عن كذا زوجين من كاسي خير كسليس وكسر قبل كبيرنا إمام أحمد بن حنبل أو رجال إنسان السفر غير جلي سفر كما كاسي وحكوه بني حافظ مساجد كلها لكن شو مشي عصر هاي مغرب هاي مركوه المغرب ساعات مركوه لدو كده سبق بين حكا جلي إمام الصالحين تسمى شاكشاكان اسمهم بونبونيان ضد أهل الخاص وأنصاصها طبعا waxay aaminsan dadku waxay leeyihiin malahan ilaahay hadii u dhawaanayaan si qarsoodi oo khaas ilaahay u dhawaanayaan la marka u dhawaanaysid dadku loo sheeg ilaahay ilaaqa khaas la sameeyaa ilaaqada khaas waa la qarsada sababtoo ah wax qarsoon ruux badan oo ikhlaaskan ku ilaalinaya noqonaysa markaas ikhlaaska ilaahay subhanahu ku ilaalinaya ilaaqada khaas sameeyaa dadku loo og sadaqa sir ku bixi توحيد في الطبان آخر استغفار كبادئ إذا عندنا كل ليسانين أو كمغلين محال علمك إمام عيسكم الشيء صلاة المغرب كنت كري كتاب قرآن أخرستين إلى هو إمام إلى صلاة عشاء والسودين الشيء مثل الجاري ويستهدي جماعة له كنت كري هذا ننعو فريست كتاب بصوقاتين مركي كتاب سوى أخينا إليك مساجد قادم كارون بدعودها صلاة عشاء كنت كري ضماء وقلعب المساجد كان جوتو مركي حكاعة صنايا إنام بحر ودي كده الإمام أحمد بن حنبل إمام كوينة سوا
مدهن لكي سقاطه وابحي مساجد الباب اللي سو غلاي دنيا سقاط انه دفتay ماشي اتجاه سنتين نتي اباوه كو سو خري الباب كي ودو markuu yimid wuxuu arkay imaamkii oo meesha raba inuu saxdo xogaa meesha lama ogola saxdo intaas kaliya kuma samina inuu soo qabtay imaamku soo jiiday dukaanka soo horjeeda oo foornada horteeda ku tuuray imaam iyo alaabtiisa wala ka tagay ninkii foornada lahaa wuu fiirsanayo wuxuu sameeyay ninkaas markaasuu ibn xudah niyo qariib ku week foornada soo gal caawa meeshaas seexo albaabkuna waa soo xiraaya hawl yar ay habtay oo aan dhamaystirayo foornada shaqadeeda iyo dulqaaday intaas kaliya marka imaamku waa soo galay dhinacii uu fariistay oo loo diyaariyey albaabkii soo xiray hawshii marka rootigu dhamaystiraya cajiinki muxuu dhahayaa marka استغفر الله العظيم 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 ما كان جوجنا إمام كوا سو استعان ويد وحولها يا هذا نكا سولوي وما تعرف العلميس إلا غرمان أذكر العلميس خاكا والعلميس مركز أوطولها واختلاف محسوس السنوات وحويل مصانع وأرسل وحولي هذا الكيلو ويلي استغفارتي إذا رمضان لكن ذكرني يقول هذا ما ربك لسان مسكرا ممكن إذا ضاع صعب عادي يقول غانسا وحنا خلينا ما أكتب أفكر أن نقاجنا إلى أكتب سوا مركز سواحات عظيم وحولنا وقت وحولنا هذا الكيلو ويلي ذكر مكان بعد مشتري أصمانا أنت فضل وآخرها بعد أسوأ فيها مركز أو حرة سؤال نقول ذكرى وحما كعاكت بعد أنت سوصنع كذا زيد كذا جوكس لها أواخر سهمين إيمان صباح القلب صلاة مركز قلب مركز شغال كجت مركز ذاتها أخذ مينز كذا جوكس هذا أصلا وحما كعاكت مركز شريحة وكعيكم الشيء وحوي وحبوبة وقابة إنا نقريه لكن وحرب القاب وأغني إسكار عجيب وضوء هاي إيش المحارك مركز وحوي وحاكي هذا قرني سيدة إيبا وقابس وحوي أذيكم شيء لكن نعوضها شيء سيدكم فارس وحوي له وحي والبوقع عنك أن أتالي إلى بسيئة مركز صباح ليل وهلا حمام ربا يا إلهي وحصان ربا إله أسير صراحة وإله إلا هل دعو معي هل دعو ويقول ديراتي وإلهي ولو يديستان مالك يجوجين وحان رجلك قبا دعاء يسئنا على انت عطي من كهر ما دام إلهي وحب أسير إنها أشيء سبتين وحران بويدينك رسؤالك هاولا وأغانك دعاء أولي أربو أخبر markaas ay wixii qof inuu sheego wuxuu ku balan qaaday ayada bacda ahana u sheego maahan adiga ahana ku sheegay markaas balan tahay markaas Ilaahay waxaan weydiistay imaam aan jeclahay oo si fiican kutubtiisa aan u akhriyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala imaamkaasi anoo nool wejigeyga inuu ku raaxaysto aragtida wejigiisa imaamkee waayo wuxuu imaam axmed ibn xambal imaamku waa ilmahayba uu ku soo ormay had uu siiyey wuxuu dhahay ducadaada awooddeeda waxaa layga soo saaray baytullah masaajidka ilaahay banaankiisa albaabkiisa markaan seexan lahaana in la isoo jiiday waxaa laygu soo tuuray dukaankaagi ducadaada awooddeeda waxay soo gelisay foornadaada anaa ah imaam axmed ibn xambal ninkii wuxuu yihi alxamdulilah waxay dhibnaa ilahay waa isiiyey ohin oo meesha ku bilaabay walaalayaal oo nafteeda idinka ilahay wuxuu siiyey wax fara badan oo diinta ka wada buuxda
استغفر الله العظيم والمدى waxay dhaheen waxay ka mid tahay ducooyinka oo wax walba oo diinta tilmaanta urursatay diinta tawxiidka ugu weyn sooma استغفر الله العظيم maxaa macneed ilaah keliya oo ilaah kale aan jirin isaga keliya aan cafis weydiisanahay cid kaloo dembi dhaaf aan weydiisanahay maaha markuu ilahay ku dembi dhaaf maxaa dhacay keliin aan noqonaysaa ayib markaa ayib noqoto in allaha طيب ولا يقبل إلا طيبا إله أقبل